بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كمده جاليدها دقن دلك إنجليزكا مقعيقنا اللي هذا حسن إبراهيم أحمد وحن هاد كهذا ليا أرنت يعني تاجن سومالي لان كتاجن دلك هوية كتاجن قراراسوه كتشرو لبضح ديوان جلنود يعني مقرن الدولة دمان تجربتها يسكو دبضة كريح يسو يدو دون يسين مدكردين لوجو سميه أو خيل كده يسحب جاس أيام دون يراي جينا كديبتو marka hore waxaan leeyahay aan yani magaranaysa halkan ka salaamayo dadweynaha oo aan u sheegaya in yani labada xeer ee dawladdu keentay ay inay yihiin kuwa aan loo baahnayn waxa loo baahan yahay kaliya xeerka diiwaangelinta codbixiyaha sababta loogu baahan yahay waxa kamid ah maxaa yeelay doorasho waqtigeedii uu dhow yahay 9 bilood baa ka harsan si doorashada waqtigeedii noogu dhacdo waxa qasaba in xeerka diiwaangelinta codbixiyaha laga horeysiiyo tan madaniga labada waa la isku wadi karaa hadii la awoodo laakiin waa in la kala saaraa oo yani voter registrationka iyo civil registrationka laba xeer oo isgalaya sharciyan aqliyan iyo yani magaranaysa sharciba uma waxaan ma aha mid meel wada mari kara sidaas aageed waxaan ka codsanayaa baarlamaanka nimanka baarlamaanka jooga ee wakiilada 28 xubnood iyo golaha guurtida ee maalintii dhaweeytay si fiican yeelay xeerka dib u dhigay commissionka ugu yeeray in ay maantana xeerkaasi ay dawladda ku celiyaan dawladdan waxaan u sheegaynaa cod shacbi ku timid Soomaaliland xukuumadan qabsanin food baa ku timaadeen foodkii u diyaar garooba hadaa doonaysan in 5 sano dambe la idin doorto foodkii dhiga sanduuqii dhiga oo diiwaangelinta codbixiyaasha fuliya taas ayuun baa waxa weeyaan Soomaaliland diyaar u tahay hadii kale muddo kordhin dambe sharciga waxa weeyaan meelna kaga taalo waxa weeyaan mana noqonaysa xal ummadda Soomaaliland ma had iyo jeer dib loogu dhigo doorashooyinka dhalinyaraan nahay aqooyahan baan nahay rajaan leenahay damac baan nagu jira ma doonayna in wax walba maanta sharcigii dastuurkii Soomaaliland uu noqdo mid la baal maro يعني مقرنيسا دولتي تمادبا ay tiraahdo waan korsanayaa halii kordhiya ma ay khayr samayso hadii ay dawladdu ay ka dhab tahay civil registration 4 years aan waxa joogtay 4 sano iyo badh 4 sano iyo badh ayay joogtay waxay ahayd in ay bilaabaan mar hore ala kulli xaal civil registration ka waa soo dhaweynaa waa madani laakiin waa in laga saaraa voter registration waa in la kala saaraa waayo waxa muhiim ah codbixinta ayaa muhiim ah diiwaangelinta codbixiyaha muhiim ah doorasho nagu soo foole laba doorasho ayaa isdul saaran tii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha iyo tii golaha guurtida oo iyada lafteeda la qabanayo marka hadii la yiraahdo hala dhameeyo civil registrationka before intaan la dhameynin intaan la sameynin tii codbixiyaha waxay ka hor imanaysaa waxa weeyaan doorashada waqtigeedii way ka hor imanaysaa dib u dhac baa imanaya qaladaad baa imanaya waxaan u aragnaa qiyaamo waayo dadkan wareer guuraa waxa weeyaan lama awoodo in yani magaraysa dadka laba kaar la wada qaato howluhu way nagu farabadnaanayaan marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siinaayo inuu arrinka ka fiirsado mustaqbalkii Soomaaliland baa ku jirta taariikhda way isqoraysaa taariikhdaada yani doorashada ku timi xukuumad imanin hatta damac kaaga jiro tartan oo voter registration ogolow halagula tartamo nasiibka qaad hadii laga badiyana waxa weeyaan dib hadii aad heshana waa lagu haniyeen wassalaamu alaykum magacaygu waa Cali Warsamaxay waxaan kamid ahay community-ga ku nool dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxaan doonayaa inaan fikirkayga ka dhiibto mushkiladda ka jirta Soomaaliland qaylada koona ilaa koona ka baxaysa ahna wax dadka oo dhami isku raacayna sharci darro yihiin labada diiwaangelinood midna ay ku tilmaantay dawladdu reer miyi midna ay ku tilmaantay reer magaal reer magaalka iyo reer miyiga anagu reer miyigaan rabnaa reer miyiga waxa weeye diiwaangelintan foodka ku geli lahayn weeye anagu taasaan rabnaa saaxiib dhammaan waxaan hambalyeynayaa cuqaasha suldaanada odayaasha labada xisbi qaran cid kasta oo ka hortimi inaanay diiwaangelintaasi ku socon shacabka Soomaaliland dawladda Soomaaliland
doorashay ku timi sidii dadka oo dhammiba ay sheegeen doorashayna ku tegaysaa waxa weeye waa ku khasbantay inay meesha ka tagto waayo qofna ma laha aqalkan waa la galaa waa laga baxaa mana yeelayaan shacabka Soomaaliland madaxweyne kastoo yimaada shan inta la doorto inuu shan isagu samaysto 10 sano ay ka dhigtaan qofna ma yeelayo madaxweynadu ma waxba kordhin mayno adiga ma aha madaxweynaha ku xigana u kordhin mayno ku xigana u kordhin mayno hadii Ilaahayna gaarsiiyo waxaan leeyahay madaxweynaha la doortaa muddadiisa ha shaqeeyo muddadiisa ha tirsado muddada markay ka dhamaato sidoo xilka ugu wareegay ha wareejiyo markasta in qayla timaado markasta inaynu ku sigano in shacabka Soomaaliland qaxo markasta in dagaal lagu sigto ilama qurux badna qofna uma qurux badna bulshada uma qurux badna cid ay u wanaagsantahay in nabadgelyo darro ka dhacdo Soomaaliland ma jirto waxaan ku talinayaa waxaan hay odayaasha ku nool magaalada London oday ka mid ah waxaan maqlayaa qaylo fara badan waxaan maqlayaa bari ilaa galbeed oo dadku qaylinayaan shacabka haddii la dhageysan waayo oo de mushkilad bay noqonaysaa oo mushkilad waxa ka masuula mushkiladda cidda dhageysan weyday waxa ka dawladda jirta hadday xoog isticmaasho xoogo waa inay ogaataa in xoogag fara badan oo hore ku burbureen meesha waa inaanay ku talagelin xooggan khasab wax kaga dhigi kara dadku waxa weeye intay dul qaadanayaan ee dawladnimada ogol yihiin ee islaamnimada ogol yihiin ee ururka ogol yihiin ayaa dawladdu u shaqeyn kartaa laakiin haddii dadku diidaan inay dawladdu shaqeyso ma shaqeynayso shacabka Soomaaliland oo dhan haddii soo taago oo yiraahdo la shaqeyn maayo cidina shaqeyn mayso waxaan ku talinayaa in nabadgelyada jirta la dhowro in dawladnimada la dhowro in xuduudaha xilan sidii loo furo arrimaha dibadda laga shaqeeyo in arrimaha gudaha laga shaqeeyo dadkan badaha ku dhamaaday loo raadiyay shaqo intan dadka lagu mashquulo in lacagtan la siinayo dadka odayaasha leeyahay waxa taageera waxan in 10 inan shaqo loogu sameeyo 20 inan shaqo loogu sameeyo 100 inan shaqo loogu sameeyo in caruurteena la ilaaliyo wax la baro laga qabto badaha in la wacyi geliyo in wadaadadu wacyi geliyaan in dawladdu wacyi geliso in bileysku ilaaliyo dadka gawaarida ku raraya in kuwa leeyahay waa laabto waayimka Hargeysa wali anigu waa markii ugu horeysaan maqlaba maanta maqlay haday jirtaba dee waxa weeye ciidamadii bileeska oo tootooyinka uu keenay wasiirka arrimaha gudaha dee inay shaqada kordhiyaan bay ahayd laakiin waxaasba kama jirin ba markii aan tootooyinku joogin ma tootooyinku marrabash bay soo kordhiyeen waxaan leeyahay dalka nabadgelyadiisa la ilaaliyo xuduudihiisa la ilaaliyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda ha shaqeyso wasaaraddiisa arrimaha gudaha iyo ku mashquulin dadka ee ha ka shaqeyso dalka wasaaradda waxbarashada ha ka shaqeyso waxbarashada dadku ha kala shaqo tago hal xaq dhowro haddii ay sidaas dhici weydo guursida golaha wakiilada haddii waxa waqtigiinu isla dhamaado miyaa iska taagnaanaysaa golaha wakiilada waqtigiidu bari hore dhamaaday oo golaha guursida 20 sano iska fadhiyo meesha idina waxa doonaysan iska fadhidaan dabeetana seen dal noqonaynaa dawlad noqonaynaa sharci yeelanayna dadka ilaahay nala yaamayaan dawladana la dooran iyo baarlamaan aan jirin iyo guursi aan jirin haday meeshiina xukumaan yay xukumayaan waxaan leeyahay oo ku soo gabagabeynayaa war dadka meesha jooga aqligu ha shaqeeyo war aqligu ha shaqeeyo war aqli xoog iyo shaqeyn war xoog yaan lagu deyn shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland waa shacab dawladnimo jecel waa shacab go'aan jecel waxaana nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi caaw halkan waxaan sugu nimi dhamaan asxaabteeda reer Soomaaliland caaw halkan joogna iyo waryaheena caanka ah ee dhalinyarada hadda ugu cadcad waddanka Soomaaliland website-ka la yiraahdo Salaam Media wax ku qora iyo caaw halka la jooga oo weydiiyay su'aal qof kasto muwaadin reer Soomaaliland la weydiiyay oo de garanaya waxa waddanka maanta ka socda iyo sida xaalku wax u socdaan waliba dhinaca siyaasadda ah anoo ku bilaabaya magacayga oo la yiraahdo Kennedy Cabdikariin Jaamac ahna ma garanaysaa ay sheeg maxay ahayd nin reer muwaadin reer Soomaaliland doonay inaan afsideeda halka ka dhiibto haddana ku doobi ku xigeenka koowaad ee wadani ah sida dadka marba shashad marka arkaan ay arki doona garanaya waxa weeye su'aasha maanta Soomaaliland ka socota ee iminka ay noo bilaabatay waa de xilliyadii waxaan ku joognaa doorashooyinkii golaha iyo xilligii ma garanaysaa ay sheeg maxay electionkii weynaaye madaxtooyada xaqii xukuumadda ahayd waxa maanta meesha ka socda waan arkaynaa nin walba waa garanayaa rag iyo dumarba ha yaraadeen ha weynaado
waxa weeye waxa maanta caqabad inta leeg u taagan ee Soomaaliland u gudbi laadahay oo maalin kaga dambayso waqti kaga lumaya waanu garanaynaa waxa ay tahay iyo si wax loo qabanayo si wax loo qaban karo waxa la isku haystaa waa maxay labada doorasho si loo kala qaadi lahaa si suurtoobaysa waanu ognahay dawladdan u dhiibanay dawladda ka mas'uula dawladda hadina soo diyaariso dawladda hadina ka shaqeyso xisbiyada mucaaradkana daabiyahaanda waxa weeye siyaasadda maanta socota waana dad shacabku soo doorteen waa dad shacabku ku kalsooyin waa dawladda barhiimaanaysay in ma garanaysaa ay sheeg loo jijiido sidii ma garanaysaa looga faa'iideysan lahaa diyaadar ma dhacay Soomaaliland ma qaadi karto waqti inuu ka lumo waqti hore uga soo lumay tii waan garanaynaa xukuumaddii siyaad barhalkay ma garanaysaa dhigtay tanna inay ma garanaysaa waqti ka lumiso wax reer Soomaaliland u qalmaa ma cuntamaya ma aha hadal nin weyn baan ku hadlayaa waxaan doonayaa waxyaabo badan aan ogahay baa jira laakiin waxa meeshii munaasib ku tahay baan la doonaa tan hadda anigu aan ku hadlayo waa maxay waxa weeye dawladda waxaan ka codsanayaa maalin waxa la soo taagantay oo aad leedahay waxbaan qabtay lacagtii baan bedelay xidigii baan sameeyay dhaqaalii baan kor u qaaday wadooyin baan dhisay wax walbaan qabtay diyaadar hadii wax ku qabanayaan wax qabadkaaga ku hadlayee waqtiga dadkan ha ka lumin xisbiyadan ha ka lumin shacabka reer Soomaaliland ha ka lumin doorashooyinkuna wixii daba jiitana waxa weeye adun bay gudaha kugu soo galayaan jawaabteedana laga rabaa hadduu inaan ku dhintana adaa laga rabaa jawaabteeda hadday inaan ku dhashana adaa jawaabteeda laga rabaa waana wax loo baahan yahay maaha kalsoonida qofka bilaadanka waa tan meel uu ku maro weeye sharcigu wadanku leeyahay sharciga wadanku leeyahay inaad ka baydhaan oo ma garanaysa idinku aad jeebkiina kala soo baxdaan oo mid meel awaal aad la timaadaan diyaadar waan ka hadlaynaa waana ka hortagaynaa waana meel walba ka sheegaynaa in laga daayo sidii wax u qabsoomi lahaayeen laga shaqeeyo ummadana nabadgelyada laga shaqeeyo dawlad baan nahay oo iminka doonayna caalamka ka iibino oo aan doonayna inaan nidhaahno dawlad baan nahay aan u shaqeyno sidii dawladnimada aan u ridno sidii dawladnimada dawladuna sharaf bay u tahay xisbiyadana sharaf bay u tahay shacabka Soomaaliland sharaf bay u tahay waxaanu mari laanahay waa labada qodob weey labada qodobda dawladdu way og tahay oo waxa weeye way garanaysaa sidii wax u qabsoomayaan leedka hal laga daayo ma garanaysaa ay sheeg xisbiguna hal la shaqeeyo dawladda intaasaan kaga baxay Bismillahir Rahmaanir Rahiim xagga marka laga hadlayo doorashooyinka anigu ra'yi ahaan waxaan qabaa run ahaantii dadka waxa u dana doorasho inay dhacdo xilkuna runtii inuu meerto noqdo oo la isbedbedelo way fiican tahay laakiin muhiimaddu waxa weeyaan doorashadu inay u dhacdo si xor ah oo xalaal ah diiwaangelintu inay dhacdo taas waxa weeyaan wax ay dadku hadday isku afkartaana ay muhiim tahay hadday isku afgaran waayaan inay dhacdana inay magaraysaa daruuri ahayn marka anigu shakhsiyan waxaan qabaa siciidahan in runtii doorashada waqtigeeda lagu qabto waa very important and at the same time inay si xor ah oo xalaal ah u dhacdana waa very important iyaduna dadkii dan u tahay dawladday dan u tahay cid kastaba dan bay u tahay xilliyo badan baynu soo marnay ilaa iyo doorashooyin kala duwan doorashooyinkii kala duwanaa aynu soo marnay waxay ahaayeen qaar aynu wax badan ka barannay sida loo codeeyo qaar aynu ka barannay sida loo magaranaysaa dadku ay u soo baxayaan qofka aad doonayso sidaad ugu codanayso waxaasoo dhan tanna in wax laga barto oo kuwii hore ay kaga duwanaato oo kuwii hore ay noqoto mid wax laga faa'iido ayaan rajaynaya insha allahu tacaala dalka iyo dadka waxaanu rajaynayaa guul insha allah kii u fiicnay inuu soo baxo ayaanu rajaynaya bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum magacaygu waa cabdulqaadir maxamed awndhuur cabdulqaadir firdhiye anigu waddanka dhowaan baan nimi kolley in badan oo wadda Soomaaliland joogtaana muuqayga way garanaysaa marka waxaan maanta halkan isugu nimiye oo aan ka hadlaynaa waxa weeyaan labada diiwaangelinooda dusha la iska saaray muhiimaduna waxay tahay diiwaangelintu dee dhibaato ma leh oo in dadka in la diiwaangeliyaa waa muhiimadda qura ee Soomaaliland u baahan tahay waxaana lagu kala garanayaa qofka muwaadinka ee reer Soomaaliland iyo qofka aan reer Soomaaliland ahayn mid xisbiyada mucaaradka ka hadlaan oo ay diidaanna maaha laakiin diiwaangelinta madaniga waxa loo baahan yahay waxa qaban karta doorashooyinka waxa qaban karta golayaasha deegaanka oo gobol walba waxa qaban kara dawladahooda hoose waxaana la wadi karaa 1 year 2 year inta la doono waa la wadi karaa marka waxaan leenahay dawladdu waxa la timir lafla ku jirtay haddaan la ku jirin 4 sanadood bay wadanka haysatay 4 sanadood ka hor inay diiwaangelinta hawsheeda soo dhigto oo ay qabato ayay ahayd laakiin waxaan leenahay madaxweynaha isagoo sharaf naga mudan oo kii aan shalay dooranaya ayaanu gacanteeda ugu ridnaya waxaanu leenahay madaxweyne 4 sanadood hore markaad baarlamaanka timaadid mar walba waxaad lahayd windhay lagu dari maayo maantana waxa ka soo muuqata ifafaalaha soo muuqday cid walba way garanaysaa dadka maanta Soomaaliland jooga ilmaha carruurna ku dhow dadku waa wada siyaasi waxaanu leenahay timir lafay ku jirtay doorashada hal la qabto waqtigeedina ha ku dhacdo
waxa kale oo aynu jaanis haysanaa sida aanu kulli maqlayno qolada deeq bixiyaasha ilaahay baa wax bixiyay inayna leeyihiin war 2015 Soomaaliya dawlad loo qabanayaa labada waqtigiina ka faa'iiday 2016 Soomaaliya loo qabanayaa waqtigiina 2015 ka faa'iidaysta haddii doorasho qaban weyno dee Axmed Silaaye tii shalayto inamada cad ku dhinteen oo baarlamaanka isagii Cabdiraxmaan Cirra ay horkacayeen carruurta yaryar ee lagu leelayay in riyaale lagu haystay dee tiimbu maanta Silaaye u jeedaa baan leen marka madaxweynaha waxaan leenahay isagoo sharaf naga mudan oo aanan ujeedo kala hayn madaxweyne adduunyada horumarka maanta Yurubta aanu joognay adduunyada meel wala oo la joogaba waxay horumar ku gaadhay inay doorasho qabato in la isbedelo waxa weeyaan xisbi waliba inuu status sanad haysto marka status sanad haysto haddii 4 sano loo guursana marka waxaan leenahay horumarku wuxuu ku jiraa iyadoo isbedel yimaado isbedelku 4 sanad ayadu marka 5 sano shanta dambe hadda heshaan alxamdulillah rabbil caalamiin waa leedin samreeya laakiin adduunyada wuxuu horumarka ku gaadhay wadamada aan hogsanayna reer galbeedku waxa weeyaan in isbedel yimaado oo la isbedelo waxaanu jeclaan lahayn maadaama maanta ama wadani ha qabsado ama uu ha qabsatee inuu xisbi kalena qabsado la eegan anigu jeclaan lahaa kulli shakhsiyan marka waxaan leeyahay nin weyno waa aragaa tahay odayii reerka tahay nin wax tara tahay maanta waxaanu leenahay yey gacantaada ku dhimanin Soomaaliland yey gacantaada ku dhiman baanu leenahay sidiina riyaal sheegay dal iyo dad isku mid ah inaad ka tagto ayay muhiimad tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi halka waxa ka saaran dhalinyarada sharafta leh isku timi in siiba uriyeen nacaanka Xamse Axmed Salaan media aad baan ku soo dhaweynay saaxib arrintan laga hadlayay dhalinyaradu ka hadlaysay waa arrin aad u muhiim ah qof kasto Soomaaliland darana way qosaysaa in la falaqeeyo in laga hadlo walba ragga qurbaa jooga waa ragga Soomaaliland ay ku taagan tahay ay ku dhisan tahay wax kasta dhibiga dheef la qaybsan karaa waxaan qabaa doorashadan aynu ka wada hadalnay rag badan ka soo hadleen waxaa la isku raacsay inay doorashadu dhacdo oo sida u dhacdo oo nabad ku dhacdo waddankan wax badan baa loo soo maray halgan badan baa loo soo maray in siyar loo baabiyo dadkan la isku diro waxa weeye ama isku dhacaan ama dhibaato timaado oo wixii laga dagaalamayay aynu ka dagaalaminay aynu dhibtii u soo marnay iyo qaxoontiga marka waxa leenahay doorashadan sida loo qabto mucaaradkuna dhibaatada Silaaye soo maray mucaarad soo haaye oo u soo halgamay oo iyuma taaganay maanta ka hadlayaan marka taana waxba yar ku sii fogaan waad shalay lahayn iyaguba waqti shalay ina kayn ulba ka sare daariyale marka yaa la yaabin wax weyn yaa noqon marka la sidul qaato arrinta aad yaan maartay loo fogeyn hala soo dhaweeyo doorashada waxaan aad iyo aad ugu kalsoonay aanu doonaa in sida u dhacdo oo nabadgelyo ku dhacdo oo aan siitii hore dawladaha hoose noqon la isku yaamba ku soo bixin oo saddex urur ka joogaan ku soo bixin oo kale yaanay dhibaato keenin taas waxaan anigu ku tar lahay kale dhibaato kale waddanka ka taagan oo imka taaba ka daranba doorasho ka daranba anigu waxaan arkaa imka in baashiba la cusboonaysiiyay oo intii qabyaalada oo la soo noolisay la soo celiyayba taasna waxa uu aabaa uqasha ama odayaasha ama suldaanada ku soo matalaya waxa weeye ninka uqasha ama ninka suldaanka waxba loo doortay waa inay kala gartaan laba waa la kala saaro siyaasi iyo uqal uqashu waa arrinkooda ku gartaan ma aha in TV soo fadhiistaan ma aha in laga hadlo xukuumad ma aha in laga hadlo xusbi ma aha haddii qofka bilaadmiga wuxuu ka hadlayba aanu garanay waa dhibaato waxa weeye suldaanku arrin gaar u leeyahay reer buu matalaa dad buu matalaa aqalkooda dad buu matalaa dawladuna waa dawlad siyaasadda iyo dhaqanka la kala saaro wixii uu gaar u leeyahay ha qabto aqalku iyo suldaanka ha qabtaan laakiin iyay ku talax tagin waxaan waxa weeye waa arrin aad socota arrin aad fuxun weeye TV-gada meel kasta ka qaylinaya ka hadlaya waxaan odhan lahayn arrintaas ha la iska daayo waa fulal aad u xun uma fiicna ka cuqaal ahaan ka suldaan ahaan uma fiicna marka aad baan u soo dhaweynayaa aragtida dadka bilaadmiga wada dibteen bismillahi rahmaani rahiim xamse aad iyo aad u wanaagsan tahay booqashada aad nagu soo booqatay maqaaxida Nomad haddii aan ka hadlo dhinaca diiwaangelinta waxaan oran lahaa dawladdu inay ku qabato doorashooyinka xilligeeda aad iyo aad baan ugu faraxsanaan lahayn haddana shacabka haddii noqoto xagga diiwaangelinta kaararkan waxaan oran lahaa kullu qof waliba oo ummadda adduunka mid waddan waliba wuxuu leeyahay aqoonsi marka aqoonsiga kaarka in la helo oo qofka Soomaaliland dharka uu helo qaataa waa muhiim waxaan ka rajayn lahaa in mataqaanaa aan la isku xirin
kaarka aqoonsiga ah iyo doorashada inaan la isku xidhin oo mataqaana qofku uu helo kaarkiisa aqoonsiga doorashadana sidii loogu talagalay ama sidii lagu heshiiyo ay ku dhacdo qof walba inuu shaqadiisa qabsado dowladana shaqadeeda loo daayo mucaaradkuna shaqadooda qabsadaan ummadaha kalena shaqadooda qabsadaan si mataqaana loo kala helo ummad kala shaqo leh oo kala mid Ismaaciil waxa aan halkan ka sheegayaa xukuumadda maanta jirta markii ay doorashada doonaysay inay hesho iyadu waxay doontay sameyn jirtay dadka mudaharaad dhigabay oran jirtay taayiray gubi jirtay dariiqyaday ka qaylin jirtay ilaa cad gooni ay lahayd okay waxaan u sheegaynaa xusbiga talada hayee kulmiya waa inuu ka daayaa dadka masaakiinta ee lacagtoodii tamaandhada cashuurta lagaga qaadaya halkii wax loogu qaban lahaa in lagu soo doorto kolba nin lagu dhiso oo la yidhaahdo in doorashada dib baanu u dhigaynaa ama credit record baanu samaynaynaa waddaanu dhisnay waxan baanu qabanay ha laga daayo dadka masaakiinta waxaan sheegayaa xukuumaddii waa tii lahayd waxbaanu qabanaynaa waanu bedelaynaa waxbaanu bedelnay wadday ku meeraysataa waddaanu dhisnay waddaanu qabanay yaa qaban kara oo la dhisilaa xukuumadda lacagta maanta soo gasha meel ay plan garaysaa ma jirto waxay ku dhistaa danteeda iyo dan ay iyadu leedahay mana ogolin haddaanu nahay dadka Soomaaliland ee ku nool qurbaha haddaan ahay Yuusuf Axmed Ismaaciil iyo wixii la halmaala waxa kale oo sheegaya wadanka raggii soo xoreeyay u soo dhintay rag baa xiniyuhu go'ayn rag baa dheecaan ka daaya inaan yaroon taariikhda meelu kaga jiraa jirin iyo inama aan laba garan iyo kuwii wax xidhi jiray basaas jiray ayaa dalkan wareeriyay oo imika wasiir ka wassalaamu calaykum